السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واستديو نايتلز kusoo dhawaada dhammaan waxaa nala socda ee na daawada iyo dhammaan islaamka adduunka daafihiisa ku nool iyo wixii Soomaaliya reer Djibouti iyo qof kastaba waxaan leenahay halkan galab wanaagsan maanta oo kaga hadli doono arrin podcast aan kaga hadli doono arrinta oo ah dhalinyarada iyo arooska dhaliishiisa maanta on ku wareysan doono dhalinyarada araygooga aan ku weydiin doono iyo arrimaha oo faaqfaaqsan ayaad kala faahfaahsan baad nagala kulmaysiin. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada istudioga in magacaaga saddexan. محمد اسماعيل والله سنبوح sideed u aragtiin dhaliisha arooska dhaliishiisa iyo maanta arrinta عروسك مانتا يدليشيسا يعني والله عروسك مانتا يدليشيسا way badan tahay wallahi horta oo mashaakil fara badan buu arooska maanta leeyahay sidii kuwii horena uma sahlana kan maanta aad baa wadayo duruufihiisa badan hawl buu dhalinyarta la galayaa qofkii dhalinyar imika waa shaqaysanaya qofkii injeer buu qaataa hawl buu qaataa ka soo qaad wuxuu sii dhigto kale imika kuma guursanay arooska maanta yacni dadkii inay farxaan oo cajalada yar ay ka hadhow meel qaar lagu duubtiyo oo ay dhigtaan aroos oo amba hool ay kireystaan amba u dheel ay ku tuntaan amba xaafad weyn amba xaafadoodii bay ku tuntaan gurigoodii amba si arooska adu wixii dhacaya maraaxiishiisa uu maraya aroosku oo lacag fara badan ay ku kacayso weliba bilaa macniyo oo aan ahayn dhaban ka baxaya aan ahayn gabaha lagu ducaynayo dhaqan u lahayn oo waxyaabo kale oo imka dhaqan ban noqday oo meel limeey ku qorayn la garanay baa jira oo qofkii kuba kalifay inuu socdo qofkii oo isagoo maanta qoys xalaala hadistile oo qofkii intuu bankiga tago uu riba ba amaanay milyan amaanay baamba ka ugu yar maxaa 700 kuma amaanay amba milyan ba qofkii amba milyan iyo 500 intuu bankiga tago qana maan oo riba wuxuu u galaya isagoo imka qofkii reer xalaala dhisay oo islaama oo dhalinyara oo reerkan xalaasha uu dhisay ilaahay khayr kaga doonay iyuba wixii uu ku dhisayna ay noqonaysaa bankiga ribo u doono taasina oo malin iyo 500 ka soo qaado ribadana maqashay ilaahay baa yiri rasuulkiisa waan la dagaalamayna tay bareerkii lagu dhisay xalaasha aan adigu balka sheekay ay lacagtii inta loo soo amaahday emil hol ku dhistaya bandarjiid ugu tuntaya gaariyaal alaab la isdaba dhigo oo arooskii wixii galow dhanba lacagta ribada la soo qaatay bal ilaahay maxaa laga helay ka sheekay subxaan allah arrintaay waa arrin culus oo runtii dad badan inta badan way garanayaan dad ay ka doohan yihiin ay garanayn qofkii oo leh noloshii xalaale oo ilaahay ka farxi oo reer xalaala gal oo ilaahay ogol yahay haddana wuxuu ilaahay ogolayna ku dhisay caradii ilaahayba kow ka bilaabaya kow oo ribo galay subxaan allah oo ilaahay bilowgiisii kolkuu reerka dhisayay uu dagaal ku qaaday saayimka khalaasba halkuu reerka ay ka degaya kolka inaan lacagtii waa amaahdo farxo oo baabuurta laga duubo eeleblayada loogu tumo adoo ilaahay waxa laga cadhaysiyey cajalad baa ka hadhay murti meeshii subxaan allah ilaa intay qaadana qalmay dhisane cajalad baa ka hadhay wixii lacagtii la amaahday ee ribadii la qaatay ee la wada duubay meeshii la doonaa lagu tuntay cajaladii hore la daawado weliba markaasaa dembigii markhaatina uga hadhay berigii carooskii eeblayo kolkaasa qol walba soo wareegaysa alla si loogu tumay alla taashkeyga alla maxaygeyga alla toobka xidhanta lacag dubu waa ribay ahayd ilaahay baa xitaa xasuustii iyo markhaatigii baa sii yaal inaad dembi gashay waxa la idhaahana aroosada caynkaayo marka la isku yimaado famiyada way ka dhacday fuqay baadhay isku geeyaan waxa timaada inaan lagu kala boodo waxa timaada adoo qarash inta la ku bixiyo cuntiyo wax kastaba la cunay inaan la idhaahaba ninkii cuntaba nama gaadhin naga isoo cara ilaahay ma bilaabin bo waxaan riba maad gelin adigu oo imika reerkii xalaashii la dhisayay lama dambooginba bal maxaa qofka ugu jira gaariyaashan istaba galay meesha ka tan lagu tumay iyagu ay lahayn dadkani ee imika laga soo dareerayo war xuseen aduguna maxaad ka leedahay arrinta wallaahi anuu kani imika mashruucan noqday waan ka yaabay 5 bilood uu soconayo 5 bilood sidoo soconaya qofba go-aan kuma gaarsiisano waalidadii baa kala haysta oo nin iyo mashruuc wada in alaabta halkaa baan u diraynaa min halkan kalaan ku qabanaynaa ma anu kuleer kanaan jecelahay may ka daa kan kale labadiiba go-aankooga la iskuma diin maxaa keenay arrin ay laba isjeceli isdoorteen ay qorsheynayaan in ay waalid soo dhex galaan maxaad leedahay waalidka qarnigan waalidadii hore maaha waxaan u malaynayaa waalidada caynkaaya inay ku badnayn
laakiin ay jiraan saad noo sheegaysa way jiraan oo waxaa kala rarayaba war aruus dana waxaya maan dushoodii wixii laysku leynay arkin labadii sodo taasaan u joogay kaan waxaan garanayaa un aruusaantii hora ee iska kharashka yaraa subaga un la marsanayay saddex cisho un ina daheeye la qaadayay haddaa la iskaga ciyaarayay maan garanayaa hadda eeg waa toddobaad ba qaar socodayay waa kiilo subaga iyo liin weyn baldi weyn oo liin oo la iska cabo bilaa problem kuwaa baa sii jirayay maasha allah maxamed maxaad ka leedahay ray amba aad fariin aad u tabin lahayd wixii hore ay ku dhacday arrimahayi way tegeen waxaan dambe amba ubaxan dambe ee guursanaya sideed maxaad ray u tabin lahayd ood odhan lahayd si ay ribada la qaadanayo amba qorshahan xun ee gaadhiyaal badan iyo qarash waxaba u dhaantayba inaa waalidka lagu biriyaba dhabanka waxaan arooska iyo hoteella lagu karaysanayo ilan waaba habeen keliya hata wuxuu qarash intee le ku dhimanaya fikirka dambe maxaad siin lahayn dhalinyarta maanta anugu waxaan odhan lahaa wallaahi waalidadiina iyaba waxaan iga baahan oo baylahdu xaggooga gabadha iyo xagga ninkaba way taal lacagta intaa lacagee la amaadee ribo loo galay tii dadkoogayba u amaanin lahayeen wax mustaqbala iyagaa meel siisan lahaa hadday doonaan amba waalidadayba u siin lahayeen oo ducaaba u gaari lahayd ay ka dheefi lahayd markaa waxaan odhan lahaa labaduba iyo isdhibin dadku ha isla eegtaan sidii reedantooda u fiican waxaana waa xalaal khayrna ilaahay oo laga doonaya inantiina ninkani waa odageygii mustaqbalka waxba inay dhibin isagiina gabadhiisii waxba yaanu dhibin si yaroo wanaagsan oo iska sahlan waalidadiina kolada dhashay isxalaalsanayaan oo noloshii kale iyo wixii kalena ay karayaan inay intii karaanku waa la dhibrayaanoo ilaan waa xalaal isla dhiso oo dadkii lala taageera un mooyaane xalaashii iyo qoyskii la dhisay in la isku dhibtayo arrinkaa anigaa iyadaa uma bogino dhalintan waxaan ku odhan lahaa sidii qurux badan iyo wixii hayntiina ah iyo sida nolosha runtaa qaata ee tihiin way tay in qofku hadduu baabuuriis daba gashay maysaga kolba mid buu qofkii ii kaalay below waa arooskaygii maanta may qaadaysaa may walaalka anu gaaswaal buuna lahayn adaa ku shubanay anu meel ma tagayo shofeer ma u haysata kaa u yar haddaan jaadka u qaad la soo bood dani kuma jirto gaaska ku shuba kani waa baabuur dad berigii dhawid biiga jabiy waxba igu noqday dhinacna waa xasarad baabuurka hadduu idaa eeg imise qof dad ururto xayraan baryaad galaysaa eeg ninkaagii aruuska ahaa maxaa baryadaa ku gelinay ay naagtuna kuu gelaan naa isku gelinba ilaan maalintaa musharaf baabato waad guursanaysay luku socotaada ahayd qoladii danta kuu fulilaysay guddida ahayd ee wax kuu meerinaysay xaggiina ahayd un adigoo baabuur ku qaado oo iska geysta meeshii meer ku dhacay meenay ka rointeed kolba qof baryaysa gaari caynkaa isoo dhib alla niisaankii ku kaloo service oo ruuxa iisoo qaad kii caynkaa gaari kaloo beeya igu yaad eeg rabshada caynkaa dee danna kuma jirto waxbana meesha kuma jira baabuurtan iyaga kuma laga laisku labadoodaba way lugayaan marka waxaad leedahay ninba siduu yahay danta xooga ha la saaro reerkana si duco u wanaagsan a lagu dhisan lahaan dhalinyarta waxaa hakiyeyde te qofku markuu kanam ahaan waxna waxaa culays on buu helaya dadka waxba inba waxaa ka sheekaysanaya waa in halkaa kuso waa in cerigeeda bay joogaanba subxaan allah markaa saas raayigay anu wallahi saan qabo dee dadkana araadu way badan tahay sidaa baad u fudud ka dhalinyar ahaan saasa u fudud ilahay na jeceliya maxaad ku odhan lahayd ray si ay arooska maanta sidan uu yahay si layskaga bedelo waa dee sideenii hore ha loo noqdo ee sharabta lahayd ya ee loo dooni jiray galbaha ee wixii nidaama uu ku dhici jiray si nidaamka ahaydna loo kala soconayo laakiin ka dambe waliraqda ma garanayo dee saddex baa soo hadhay in meheryaan kula marmay ii dhiibaan kaa dhaqde iga dhal ha ku dhige